farmaajo muddo 6 bilood ah oo ay la socdeen koox 18 wasiir ah waxa ay qayb weyn ka qaateen maamul wanaaga iyagoo mushaharada si joogto ah ugu bilaabay dhammaan shaqaalihii wasaaradaha arrimaha aan wax ka qabanay waxa kamid ahaa dawlad wanaag oo aanan hore u jirin waxa ugu horeeyay inaan sameeynay miisaaniyad sanadeedka ahaa ugu horeeyay oo laga approve gareeyay ama confirmation laga siiyay ama laga baasiyay baarlamaanka taasoo ay ku jirtay in la baxsho mushaharaadka shaqaalaha bil walba 25 markay tahay in maxaan ku raahdaa la dagaalamo musuqmaasuqa oo cidii loo malayo inay ka dambayso musuqmaasuq ama ay wado musuqmaasuq la qabto ama jagooyinka laga qaado darajada laga qaado sama kuma heshiyay sina uma hagagay saqashan madayay xildhibaanada ku guuleystaa in beelahooda ay soo magacaabaan ama ku guuleystay waxaan ka codsanayaa baarlamaankaas in aysan khaladkii hore loo galay aysan gelin inay markaan dalkooda iyo shacabkooda iyo dadkooda u heeliyaan ay doortaan oo ay siiyaan codkooda haddaad codkiina isiisaan waxaan ballan qaadayaa dalkan 4 sano gudaheeda inaan ku istaajino oo wax alla wixii dawladda laga rabay aan keenno oo ugu horeyso cadaalad haddii aadna doorataan hawshii aan hore u qabanay qaybtii hartay iyaan dhammaystiraynaa waxaan rajaynaynaa inaan sameeyno hawshii aan qabanay mid ka wanaagsan hadduu eebba yiraahdo xildhibaan waa ku ka mas'uuliyadiisa saar oo codkaaga sii maxamed cabdilaahi farmaajo si uu muddo 4 sano ah dalka Soomaaliya dib caalamka ugu soo celiyo